subax wanaagsan ayaan idin leeyahay khiyaarta hawada igala xiriidha ku xidhan social media-da aad baan idin salaamayaa. waa Bashiir Muuse cashiradii aad horay uga barateen halkaa kasii wada. waxaynu soo maray oo cashiradii kan ka horeeyay koobaad iyo labaad baan ku soo maray. ilaahay waa kuma kitaabka quduuska ah. marka waxaynu soo akhrinay Tawreed, waxaynu soo baranay tawxiidka, hadday noqoto kitaabka Bible-ka iyo hadday noqoto kitaabka Quraanka ah. ayaynu soo horay usoo qaadanay cashirka koobaad iyo cashirka labaadba. maanta waxaynu ku sii soconaynaa cashirka saddexaad oo ahaa qaybtiisii labaad. cashirka saddexaad ama episode number 3 qaybteeda labaad oo ku saabsan ilaahay waa kuma. ilaahay ma isku mid ba? ilaaha Bible-ka iyo ilaaha Quraanku ma isku mid ba mise way kala duwan yihiin? sida kitaabka Bible-ka uu ilaahay usoo gudbiyey ee uu ilaahay isku muujiyey iyo sida uu Quraanka isku muujiyey, ma waxbaa u dhexeeya farqi ah mise waa isku mid? marka fadlan ila soco cashirkii ayaynu halkaa kasii bilaabanaynaa. qaybtani waxay leedahay ilaahay sida Bible-ku qabo waa eebbe jacayl ah oo dadka oo dhan ayuu jecel yahay, xataa kuwa ku caasiya ee dembiilayaasha ah wuu jecel yahay, laakiin dembiga ayuu neceb yahay. marka waxay leedahay ilaahay qaybtan labaad kitaabka Bible-ku ilaahay sida Bible-ku qabo waa ilaah jacayl ah oo dadkiisa jecel, oo dadka oo dhan buu jecel yahay. ma aha dadku cadawullaahi iyo sadiiqullaahi, cadow ilaahay iyo dad ilaahay jecel yahay. dadku sidaa ma aha, dadka oo dhan buu ilaahay jecel yahay Bible-ka. maxaan ku idhahaa, laakiin ilaaha Bible-ku isaga oo dadka oo dhan jecel ayuu haddana dembiga neceb yahay. marka dembiilayaasha weli wuu jecel yahay, oo isaga abuurtay, oo isaga arsaaqa, oo isaga roobka u da'siiya, oo isaga cadceedda u soo bixiya, oo caafimaadka iyo noloshaba siiya, laakiin dembigoodu neceb yahay. wuxuuna jecel yahay inay dembiga sii daayaan oy ka toobad keenaan. marka aynu ku sii soconno oo aynu akhrino bal aayado ku saabsan jacaylka ilaahay ee Bible-ka oo injiilka ku yaala aynu akhrino. waxay leedahay sidan: liannahu hakada axaba allahu alcaalam xataa badala ibnahu alwaxiid likay laa yahlik kula man yu'min bih bal takunu lahu alxayaatu alabadiya liannahu lam yursil allahu ibnahu ila alcaalam liyudiina alcaalam bal liyukhallisa bihi alcaalam alladii yu'min bihi laa yudaan والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. marka aayadahaas waa injiilka Yoxana cutubka 3 aayadda 16 ilaa aayadda 20. marka waxay leedahay ilaahay intuu jacayl dunida u qabay, yacni heerka jacaylka uu ilaahay adduunka u qabo ay gaarsiisan tahay weeye. adduun maxaa loo jeedaa marka? adduunyada waxa weeyaan ilaahay waxa uu abuuray ee koonka dhex yaal oo dhan oo makhluuq ah weeye, oo bini aadamku ka mid yahay. bini aadanka, xayawaanka, dabeecadda, dheerta, waxaasoo dhan weeye, nature-ka, waxaasoo dhan ayaa adduunyo ah. marka ilaahay jacayl uu adduunyada u qabo aawadeed wuxuu u soo diray wiilkiisa keli ah, wiilkiisa keli ah, si qof kasta oo rumeeya uusan u halaagsamin, si qof kasta oo masiixa rumeeya oo wiilka ilaahay rumeeya uusan u halaagsamin, laakiin uu u helo nolosha weligeeda ah oo uu ilaahay jannada ugula noolaado. maxaa yeelay ilaahay wiilkiisa uma soo dirin adduunyada inuu adduunyada ku ciqaabo, adduunyada xukumo, oo adduunyada ku baabi'iyo, laakiin wuxuu u soo diray inuu adduunyada ku badbaadiyo ayay leedahay aayadahaasi. marka ilaahay wiilkiisa ayuu adduunka u soo diray si uu adduunka u badbaadiyo oo weliba dadka u badbaadiyo. marka maxaa loola jeedaa baad odhan kartaa wiilka ilaahay? shalay baynu in yar ka yar hadalay. wiilnimada halkan waa biological ma aha. waxaad shalay soo aragtay inuu Quraanku aad u weeraray oo uu aad u dhaleeceeyey masiixiyiinta inkastuusan magac dhamin, oo uu ku eedeeyey inay ilaahay aflagaadeynayaan, inuu leeyihiin ilaahay wiil buu leeyahay. liyundir aladiina ittakhada araxmaanu waladan. saas ayuu Quraanku in badan kusoo celceliyey. kuwa ilaahay wiil ku sheegay, laqad ji'tum shay'an iddan takaadu samaawaatu yatafadarna minhu watanshaqu
وتنشق الجبال وتخر لها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يكون له ولد. أي هذا سورة مريم. marka waxaweyaan quraanku aragtidan ama iimaankan ama mabda'an inuu ilaahay wiil leeyahay aad buu quraanku uga soo horjeedaa. wuxuuna quraanku u fasirtay in loola jeedo wiil biological oo galma lagu dhalo. waxaan soo maray in quraanku yiri wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma takhadha sahibatan wala waladan. naag iyo wiil midna ma laha ilaahay. badiicu samaawaati wal ardi anna yakunu lahu waladun walam takun lahu saahiba. ka samada iyo dhulka alifay isagoon meel ka dhowranin sidee buu wiil u yeelanaya anna yakunu lahu walad sidee buu wiil u yeelan walam takun lahu saahiba naagba ma lehe. marka wiil naag la'aan in la yeesho quraanku ma qabo. inkastoo ibnu sabiil haddana meesha ay ku jirto ibnu sabiil. marka haddii laakiin tawreed iyo injiil laga hadlayo quraanku wiilba haddii la sheego biological buu u fasirtaa isagoo luqad majaasi oo kale oo macna majaasi oo kale uu quraanku ku jiro oo ibnu sabiila oo quraanku ma qabo cid u fasirtayna ma jirto in wadadu ina wado ama ibnu sabiil inay wadadu dhashay si biological inay wadadu dhashay. marka wiilnimada meeshan ee masiixu waxa weeyaan waa wiilnimo macnawi weeyaan. waa macnawi waana ruuxi weeyaan. waxa la dhahaa spiritual terminology weeyaan. waa mustalax ruuxi weeyaan. waxa weeyaan shariicada islaamka nusuusta diiniga waxay leedahay laba macna luqawi iyo macna sharci ayay leedahay. marka injiilkuna saasoo kale wuxuu leeyahay macna xarfi iyo macna magaranaysaa sharci oo isqaabkii loo fahmay ee loogu talagalay marka wiilnimada ilaahay wiilka ilaahay markuu masiixu wiilka ilaahay noqday waxa weeyaan ilaahay lama caayin lama aflagaadeynin waayo cid u fahantay inuu ilaahay intuu soo dego oo bini aadan iska dhigo oo gabadh la xidhiidho oo galmo la sameeyo wiil ka dhalo cid saa u fikirtay ama sidaa maskaxdeeda ku soo dhacday lamaba aragba mana dhicin. way fahmaysaa. marka waxaweyaan ma aqaan meesha khaladku ka dhacay. waxaweyaan carab badan oo masiixiyiina joogtay jasiiradda carabta oo masiixiyadu inta badan carabta oo dhan masiixiyiin bay ahaayeen. sacuudiga intiisa badan masiixiyiin buu ahaa. ma garanaysaa ciraaq suuriya lubnaan falastiiniyiinta masiixiyadu masar masiixiyadu aad bay ugu fiday carabta islaamka ka hor xataa waqooyiga afrika algeria iyo ma garanaysaa culimada ugu waaweyn masiixiyadu waxay ka soo jeedeen algeria iyo morocco iyo qabaa'ilka barbarka loo yaqaan maanta. marka in quraanka iyo muslimiintu ay sidaa u fahmaan in loola jeedo wiilnimada masiixa in physical ay tahay oo ilaahay lagu caayo lagu aflagaadeynayo haba yaraatee xagga saqaafada bariga dhexe meel ay asal ku leedahay ma jirto. meel ma aqaan waa nasiib darro dhacday runtii nasiib darro weyn oo dhacday weeyaan. marka wiilka ilaahay waa ruuxi weeyaan. waa eray ruuxi waa macna ruuxi oo ma garanaysaa oo weli masiixu intuuna maryama ka dhalanay weligii wiilka ilaahay buu ahaa. ilaahayna weligii aab buu ahaa. sababta ma jirto ilaahay mar uu naaqis ahaa oo deedna sifo uusan lahayn ay ku biirto sida aabanimada oo kale oo marka aabba noqdo. ilaahay masiixa intuuna jidhka ka abuurin ka hor ayuu aabba ahaa oo aabbaha masiixa ahaa. fahmaysaa. marka ilaahay intuu jacayl dunida u qabay ayuu wuxuu u soo diray wiilkiisa kaliya ee xagga ruuxiga weeye. fahmaysaa. marka waa xagga ruuxiga ee physical iyo galmo loolama jeedo. tacaala allahu camaa fahimuu culuwan kabiiran. waxaan leeyahay qaabkay u fahmeen ilaahay wuu ka fog yahay ayaan leeyahay. quraanku wuxuu yidhaha tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiiran. ilaahay wuu ka sarreeyaa waxa ay leeyihiin. marka carabtu ay ilaahay caayaysay ayaa quraanku saa ugu jawaabay. ila socod. marka waxa weeyaan waa injiilka yoxana cutubka 3 aayadda 16 ilaa aayadda 21 aan ku socdo. ma garatay maxabat al-a'daa wuxuu yidhi masiixu ciwaanku waxa weeyaan in cadowgaaga la jeclaado cadowgaaga in la jeclaado. wax aayadahani waa injiilkii weeyaan ciise masiix uu la yimid. waa fariintii ciise masiix ama waxyigii nabi ciise ninba si u fahmo mustalaxaadkaaga iyo qaabka ay muslimku u fahmaan haddaan ku sheego waa waxyigii nabi ciise uu dadka la wadaagay wey. wuxuu yidhi samictum annahu qiila tuxibu qariibaka wa tubqid caduwaka wa ama ana fa aquulu lakum axibu acdaa'akum baarikuu laaciniikum axsinuu ilaa mubqidiikum وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويدردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمدر على الأبرار والظالمين
لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك وإن سلمتم على إخوتكم فأي فضل تصنعون أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. أيضا آد معان آد جعلها أنو waxay leedahay wuxuu yiri ciise masiix wuxuu yiri waxa ku qoray tawreed oo waxyigii nabi muuse lagu soo dejiyay kamid ahaa in aad qaraabadaada jeclaato cadawgaagana nacbaato wax la yaaba oo markaad cilmiga diiniga aad baadho siiba masiixiyada iyo islaamku inta badan 99% injiilka uu ka booday iyo ahdiga cusub iyo masiixu fariintu la yimid marka laga reebo dhowr aayadood oo kooban oo ku soo arooray suuratul baqara iyo suuratul al-imran iyo suuratul maa'ida oo dooda kulkulul ah oo trinity-ga iyo salaasanimada iyo aqoonta masiixiyada lagu weeraray ma fahmaysaa inta kale quraanku tawreed buu soo xigtaa tawreed buu ku abtirsadaa عقيدة التوراة هي شريعة التوراة أي سو حكتها وكتبنا فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص سورة المائدة صماهين وحانو توراة كو قري توراة بالغو قري قرآن كنا سيدي مبوسو علي أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص وحدود دي ويان الحدود الشرعية ويان في الشريعة الإسلامية أو إنجيلك لكن تعايلك إنجيلك أوي آياتها وابل النسخي إنجيلك لغو النسخي آياتها حدودة إنجيلك لغو النسخي عيسى مسيح حدود عندها حدنا سيدنو بجريبا بل دقيسو وحو وحا كو قران توراة سمعتم أنه قد قيل وحا توراة كو قران أول يجري وإلهي يجري ويان تحب قريبك وتبقد عدوك صاحبك أنا تشعلو عدو قاقنا نعم أما أنا قسا وحان إذن كل هاي أيو جري عدو قينا تشعلادا oo kuwa idin habaaro u duceeya oo kuwa idin magaranaysa idin dhibah u duceeya ya aan kugu celiyo halkaas marka aayadaas aad bay macaanta aan ku celiyo mar labaad wuxuu yiri sidan ya أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى الذين يبغضونكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويدردونكم أنا وحان لا هي إن حريستك هو إذن dhibah guryaha idin ka saara yaa waa gaala idin ku dhaha oo jeclaada kuwa idin neceb oo u duceeyo kuwa idin habaara marka waxa weeyaan waa dhinaca kale weey ahkaantii iyo xuduudii ku taale shariicada tawreed iyo magaranaysa iyo islaamka uu soo qaatay injiilku uu nasakhay waxa la yiraahdaa cadawgaaga jeclow oo ku habaara u ducee oo ka guriga ka saara u samafal say u dhici kartaa in qofku neceb gurigaaga ka saaray inuu ku dilo doonaya aad jeclaato oo u ducayso oo ilaahay u barido waa wax aad u adag runtii inuu ilaahay ku caawiyo oo ilaahay qalbigaaga uu taabto oo jacaylkiisa ka buuxiyo mooyaane wax awood bini aadan lagu sameyn karo haba yaraatee ma aha ya waxa nature ah dadku inay cadawgooda nacaan ka habaaraan ka ku neceb inaan necbaato oo guriga ka saarto adiguna wuxuu yiri لكي تكونوا أبناء أبيكم في السماوات فإنه سداس واحد ويلسان لكي تكونوا أبناء أبيكم إلهي وآبين وصانر صوما إنجيلك 10 كشلي ويان إلهي كتابك بايبلك وآب ويان سدا يلا دتك كدونادا وشرها وأبا الجذين لكي تكونوا أبناء أبيكم في السماوات سدا وأكاتان أو النقطان عرورتا أبيهن سماد كتيرة جنة جوجا محايلي فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والأشرار بيجي وحو إن حريستا أو روبك أدأسيا أو عد أصابحيا كوا حنحن كسور كذا إن من سنين يكوا شعل عابد أمان الله بدوا شعيلك إلهي مركا سيدا آيادا كعب جنسكم حدنا وقبيلكم حدنا ومبدأكم حدنا ودينكم حدنا دينكم حدنا ما أنت وحد أركيسا حداد أدونك السلعة وفيروسا ما أنت مركي ميل بلايا كدعدو هايدها وغهرية وقرمة دادك وهايدها مسيحيين تويان يا وكريستيان تشاريتي أورجانيزيشن هايدها مسيحيين تا يجو أكدولة يتعايل كاس يجو أكدولة مبادئ إذا تشعايل كوساليسن
أي مركب ميل بلايا كدعو وودن الجرير كدعو وودن مصيبة كدعو أما مد طبيعي هالنقطة أما مد بني آدم وكان سيد الدجالة أو كلا هالنقطة أي أجرم هذا بري دو أنساء وفوجين وشان يطمن كسنة قدام بيسي أي المسلمين تقود يدين ويسمين هيدا إسلامي أو يجون سما فلا سيدا بريدش charity يو مقارنة هيدها مقارنة حتى عربته أي سمين خليج كه بترول كله مركا مسيحيين توي كجهريين تدي يوجا أدون كله هيدها سما فلك إن دتك اللوجر جار ودتك عباره كل يعني دتك قحوتي قال قابله يا وما أركيست هاي أنت بدنها حتى ودمادش بريجا فوق تشاينها يجابانيس كيو ما أركيست ها ما أركيست هاي تشاينيس وسما فلو أدونك أردو يسوي مركب بلاي ملك قاعد يقول منس ما تقولي ما ركت ما أركيست هاي ذا كسر باكستان إيو مقارنة ساعة حتى يبلا من سعودية عربية إيو مقارنة ساعة دولة عربته ووقت آدو دويانو هذا شن طبعا سنة كبدنين يجو كسو كوبيين هي كون مسيحيين تا ونا أديك سنة مقارنة ساعة تابع الدين والدعوية مقارنة ساعة مركا سداس أي إنجيل كقرن آياتها سوال النسخ وحالي رجعلادا كوا إذن هبارة وأدعية كوا إذن هبارة وكوا إذن عبي قريها إذن كسار وسما فلا سئات النقطان به نجنا ذكرى محايا لدتك أردن هو في عني كوا حنبا إسكو سيبو وجعليها وإسكو سيبو ونحرستا مركا حوين به نجنا ذكرى عشر كحوين إلهي وعابدتك سجعل كتابك بايبلك ومتايوس عتب كشناد آيات أفرتني يسدح هي أفرتني سديد وين آيات هاي أنا هذا كوسو أخري أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله من لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبة واو وعجيب يعني ما أعرف أنا haddii aad meel ku maqashay ama meel ku aragteen fadlan ila soo wadaag ma arag kitaab diini ah oo ilaahay ku abtirsada oo le ilaahay waa jacayl oon ahayn injiilku wuxuu leeyahay ilaahay waa jacayl allahu maxabba ilaahay waa jacayl marka wuxuu yidhi waa rasuul yoxana ya qoray waa warqadda rasuul yoxana ka koobaad cutubka afraad aayadda 7 ilaa aayadda 8 wuxuu yidhi ayuha alaxibaa saaxiibadaydii aan jeclaayow kuwii la jeclaayo weeyaan kuwii la jeclaayow ayuha alaxibaa kuwii la jeclaaya ilaahay jeclaayow linuxiba bacduna bacdan aynu isjeclaano buu jiri aynu isjeclaano maxaa yeelay ilaahay waa jacaylku ilaahay buu ka yimaadaa buu jiri laanna almaxaba min allah jacaylku ilaahay buu ka yimaadaa ya jacaylku ilaahay buu ka yimaadaa soo ma garanaysid man laa yuxibu laa yacrifu allaha buu yiri qofka aan jeclaanin dadka إلهي ما يقانو يا من لا يحب لا يعرف الله أي يجري قفك عن شعلان إلهي ما يقانو قف عن شعيل لهن إلهي ما يقانو يعني كوكو عليو يا لأن المحبة من الله وكل من يحب فقد ولد من الله قفك استقعو ضدك شعل إلهي حقي سالة قد علي ولد من الله إلهي حقي سالة قد علي إلهي بعد علي إلهي بعد علي مركب مسلم مركب مقلان يورنيان يا إلهي بقى واحد علي ماشي الدلما تالو ودلما روحي spiritual reborn ويان حالة دبو دلاشو دبو عرشو هأرجع سيتشعلين سامع دبو عرشو محل ما ملكي عبدي إلي بأرجع بحي دبو عرشو دبو دلاشو مركب حاول قفكي المؤمن كهين إلهي أقولن مركو إلهي أقبله وإيمانك أقبله ومسيح أقبله qof cusub buu noqdaayo dabeecadihiisii hore iyo dhaqanadiisii hore iyo wixii wadi jiro dhan intuu iska daayo ayuu wuxuu noqdaa qof dadka oo dhan jecel oo macaan oo dadka oo dhan ay jecel yihiin marka waa dib u dhalasho la yiraahdo masiixuna hadeedan dib u dhalanin jannada ma galaysaanba ya injiilka yoxana cutubka 3 nikodemus buu ku yiri wadaad nikodemus oo culimada waaweyn ee yahuudda kamid ahaa habeenkii u yimid ayaa wuxuu yiri qofka aan dib u dhalanin boqortooyada ilaahay ma galayaba jannada ma galayo qofka aan dib u dhalanin marka waxa weeyaan ولد من الله هذا مقشو حوين اختير من الله إلهي بعد دورتي كو إلهي دورتي إلهي أقبلي ويان مركا وحا لغا عبري وحا لغو يري ولادة إرقا ولادة لكن دالمو فيزيكالا معها وما قرأنا سا قبر لغا دشو أما قفت مرة لغا دشو مركا ساولا الصعب يا لأن فقد ولد وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله قف كستو وحد شعل حق إلهي بالغد علي إلهي نقول شعل هاي ومن لا يحب
لا يعرف الله قف عن جعيل لهين إلهي ما يقانو قف عن جعيل لهين وضدك النعب إلهي ما يقانو لأن الله محبة إلهي واجعيل إلهي واجعيل وحوي وإنجيلك ورقدي رسول يوحنا كوبات عتبك أفراد آية تضبط إلى آية استدادة أنكو سعنو إلها سيدا بايبلكو قبو wuxuu isku muujiyey saddexnimo ama trinity arintana waa arinta ugu khilaafka badan xagga muslimiinta iyo masiixiyiinta dhexdooda khilaaf aad u badan oo la toli karin ama aan la isku soo dhaweyn karin ayay ka dhexdhalisay waana fahan xagga aqeedada oo islaamku u fahmay muxuu islaamka iyo quraanku iyo nabi maxamed ay saa ugu fahmeen arin meeshan taala ma aha ama aynu halkan ku xallin karro laakiin waxaan ku muujinayaa oo ku cadeynayaa arinta isqaabkaas quraanka iyo nabi maxamed ay u fahmeen injiilka aqeedada masiixiyadda inay aad uga fogtahay aad iyo aad inay uga fogtahay ya quraanku wuxuu ku eedeeyay masiixiyiinta gaalnimo iyo shirki waa aad u weyn waa tuhmo aad u weyn isla markaa haddana wuxuu ugu yeedhay mu'miniin cuntadoodana la cuni karo hilibkooda la cuni karo gabdhahoodana la guursan karo mayna arrin la yaab lahayn waxaa ممنوعة أو مسلمين تحاران كه قف مشركة هيلب أو قلي أما نيف وجورع إن الدميان أما الناق مشركة ذا إلى جورسدو يا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك حسنهن بالي ناق قال لما جورسن كره يا ولا تنكحوا المشركات ناقها قال ذا إيه وسنيين تين إلهي أقونن هجورسنين باليل يا مسلمين تبى الجولية ولا أمة مؤمنة خير من مشركة أضون مؤمنة إلهي تقانا وإله التوحيد أيها كفد لبضن مد حرقة أو مشركة أو قالة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة باليل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة وحال حتى وحال قدري ولو أعجبتك حسنهن قرح ذو بحق يابسه قرح ذو بحق صد حق توخسه وناقها قبل أدونك أو قرح بدن هالنقطة قبل هذي مشركات بتهاينو إلهي أقونن مسلم كواك حاران قف مسلم إنه جورسدو وعلة المنع الإشراك سبب المنعية اللي ودي ده هل كان لو ودي دينا وقال لهم ينين إلهي أقونن أهل التوحيد بعهين سما قرنيست إسلا آية هاس أي وحاليدي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامك عنتذا أهل كتابكم وحلال وإذن حلال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم عنتذا أهل كتابكم عنتذا يهود يا مسيحيين أما كريستيان تيجوا وإذن حلال وذبح ذيذ أما حولها قلان وحلال ويان سيدي يسوع مسلم قلا وكلا والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب بيت آيات كلنا وصل سورة المائدة عنتدي صوت اسمها جوركنا واكن والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم بالي قبلها مسيحيين تأيو من قرنا يسا يهودو وإذن حلال إناد جورستان مركب محاتي مشركة دينا لو حران تنميي تن أهل كتابك أنا لو حلالي وعقيدة دي إيمانك يعني نسكو مدى هاينو تنا إنن إلهي أقونن تنا إلهي تقانو تنا أي مشركة هاي تنا أهل التوحيد هاي لكن قرآنكم مرنا سيدنا وليه مرنا سيدنا وليه مرنا وقالينا يا مسيحيين تي يهودي وقالينا يا هو مشركين بوليه هاي ودقال بكو قاضا يا مرنا وحو ليه هو أهل إيمان أو أحباء الله وددك إلهي تعالى أو وددك أهل كتابك أها أو وحي قلانا والعني كرا قبله هذا والجورسن كرا قبل لا تجورسته وحوين أبهد وحوين وصدقة هو يدنا وصدقها ولا الكيدنا وأبتجا وحوين وسيدقة وحوين وفاميلي ونقونيسين أفجريسة وحالها step father step mother sister in law brother in law بعدها family ونقونيسين فاهم إذا مركا قرآنكم ما قلنا يودد قالا إن family قالا أما قيس قالا إن لا لحد دول لقود درسمو وقيس نقف مسلم إنه قالا كود درسمو وقيس لن نقول لهم أقوله وحرام ويعني شريعة الإسلام حدنا وهكنا مركا قرآنكم سيدنا نقول ليه سيدنا نقول ليه آياتنا عن آخرينه قرآنكم حول ليه ناسخ يا منسوخ أيو ليه هو اسمه السخاء وحول ليه هذا كلام مكي يا مدني ميد مكة كسودة يميد مدينة كسودة أنت بدن قرآن كم مكة مدني إيه مدينة كسودة أيان السخاء
qaar badan oo quraanka maka ku soo degay inkastoo culimada qaar ay ka doodaan arrimahaas oo leeyahay quraanku mar isma nasakhay waxa weeyaan aayadaha xataa maka ku soo degay waqti kasta way shaqeynayaan oo duruufaha xaalad kasta oo xilliga u ekeyd way shaqeynayaan marka quraankan hadda aynu akhrinay iyo aayadaha aynu akhrinay ee ahlu kitaabka cuntadooda xalaaleeyay ee guurkooda xalaaleeyay ee mu'miniinta ka dhigay waa suuratu maa'ida suuratu al-baqara suuratu al-imraan oo madani oo madiinay ku soo degeen lama nasakhin waa quraanka u dambeeyay nabiga ku soo degayba sida ay shariicada islaamka iyo muslimiintu qabaan aan ku socdo yani dooda kugu dheereynina وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجبل حيث أمرهم يسوع ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر وإنجيل متى عدك سديد اللباتنات آية اللي هي 8 إلى آية اللباتنات ما حكوا حيلة هاي عيسى المسيح وحي كوية 8 كي رسول مثل رسول لقد جايبا مسيح خيانة يودنت يوداس إسخاريود لورنشري marka kaas ha kula 12 hadda marka 12 baa soo haray markuu kaas u dhintay waa markuu ciise masiix soo sare kacay dhimashada ka soo sare kacay maalintii saddexaad marka wuxuu yiri 12kii ayaa waxay aadeen jaliil gobolka jaliil waa gobol waqooyiga Israa'iil ku yaalo ilaa maanta jaliil la dhaho magacaas uu ku yaala yaa magacaas uu leeyahay maanta gobolkaas ay aadeen oo waliba buur baa meesha ku taalay caan ah oo masiixu inta badan xirtiisa uu la tagi jiray halkaas ay tageen waayo masiix ayaa ku yiri halka markaan soo sare kaco dhimashada ka soo sare kaco halkaas iga sii horeeya halkaasaan idinkaga daba iman doonaa marka meeshii bay sii tageen markaas uu yimid markay arkeenna way u sujuudeen masiixa ayay u sujuudeen laakiin bacdhum shaku badh baa shakiyey yiri war malaha isagii ma aha yaa markaasuu la hadlay masiixu فتقدم يسوع وكلمهم قائلا مركا مسيحا يا لا أركيو حرتي سبا وسجود حرتني ضد يهودا وأهل التوحيد أو توريد هايستي هاي توريدنا محكو قرن شمع إسرائيل إلهينو أدوناي أخد أي لاد هاي وأفك هبروغا أيام كوغو أخري أفك هبروغا أي توريد كسو دكتي شمع أي لقولي اسمع يا إسرائيل إن ربك إلهنا إله واحد ويان وحويان لا إله إلا الله ويان مركا لما أنتو أهل التوحيد بي هايانو آيادا سي هايستين وطبعاً أمر إلهي ونمي مسؤول بك وغهري وعقيدة توحيدك قلبك وغهري وحويان شمع إسرائيل مقل إسرائيلو إلهينو أدوناي أخد ayaa ugu horeeyo ilaaheenu rabbigeenu waa mid ayaa ugu horeeyo marka sidee ciise masiix ugu sujuudeen ayaa isweydiin kartaa ileen cid aan ilaahay ahayn sujuud ma istaahishe oo cid aan ilaahay ahayn haddii loo sujuudo waa gaalnimo waxay ugu sujuudeen waxay arkeen ciise masiix inuu laba shakhsi yahay meel kale aan arrinta kaga hadli doonaa in uu jid bini aadan leeyahay oo xagga dusha iyo araga iyo physically uu bini aadan ka yahay xagga ruuxana uu ilaahay ka yahay meesha quraanka iyo masiixiyiinta iyo islaamku meesha ku kala dalaaceen ku kala tageen weeyaan injiilku wuxuu leeyahay Allahu dhahara fil jasad ilaahay baa jid iska muujiyay Allahu dhahara fil masiix ayuu injiilku leeyahay ciise masiixku ilaahay wuxuu ku jiray oo uu ka buuxay oo uu ka dhex shaqeynayay oo uu ka dhex hadlayay ciise masiix يفهمسها سبب تاسي ugu sujuudeen marka jidkan bini aadanka ameena u sujuudin ilaahay oo ciise masiix ku jiray ayay u sujuudeen ciise masiixna wuu aqbalay bil munaasaba a'uudu billahi war waa gaalnimo meeshka ka kacay ilaahay ba xaq u leh in la caabudo loo sujuudo ma dhahin wuu aqbalay in loo sujuudo sababtoo ilaahay baa ku jiray meel kale inoogu iman doontaa wuxuu ninka aniga arkay ilaahay buu arkayba doodaas meel kale in kaga doodi doonaa marka qaar baa shakiyay oo maxaan ku dhaha ka shakiyay markaas wuxuu yiri amar oo dhan
meeshan inuu ilaahay isaga ku jiray oo kan hadlaya uu ilaahay yahay ayaa muujinaysa. amar oo dhan samada iyo dhulka anaa laysiiyey, amar oo dhan awoodda iyo maamulka koonka anigaa laysiiyey. marka taga oo ummadaha oo dhan xer ka dhiga, masiixiyiin ka dhiga weeyaan ummadaha oo dhan. waa aayad dacwo ah weyn aayadani, ya oo dadka gaadhsiiya injiilka. wacamiduuhum biismi alaabi walibni waruux alqudus. waxaad ku biyogelisaan. biyogelinta waxaan ka soo hadalay cashirkii horaan kaga soo hadalay, waa dhaqanka masiixiyadda. qofku markuu masiixi noqonayo masiixiyadda uu aqbalo, biyaa la geliyaa, biyaha la makhuursiiyaa. marka waa shahaadatul walaada. qofku markuu dhasho isbitaalka soo shahaado looma soo saaro, shahaadatul walaada weeyaan, wilaada jadiida fi lmasiixiya. qofku markuu masiixi noqdo waa biyaha la geliyaa. maxaa biyaha lagu geliyaa? bismi alaab walibni waruux alqudus. ilaahun waaxid biasmaa alaab walibni waruux alqudus. ma aha magacyada, ma aha, waa magaca. marka waxaa weeyaan alaab walibni waruux alqudus ayaa ilaahay ah. aabuhu keligii ilaahay ma aha, masiixuna keligii ilaahay ma aha, ruuxa quduuskuna keligii ma aha. saddexdoodan ayaa ilaahay ah. saddexdoodan ayaa ilaahay ah. marka waxaa weeyaan sidaa weeyaan tawxiidku. biismi buu yidhi, waa mufrad weeyaan, keli weeyaan, waa waaxida, wadar ma aha, biasmaa ma aha, biismi buu yidhi. biismi alaab walibni waruux alqudus. ya kiniisadaha markaad ag marayso waxaad maqlaysaa alaab walibn waruux alqudus ilaahun waaxid bay odhanayaan kuwa carabtu. aabbaha iyo wiilka iyo ruuxa quduusku waa ilaah keliya. kuwa etoobiyaankuna maxay odhanayaan? alaab wawaalid wamanfas quduus axadu amlaak bay odhanayaan. aabbaha iyo wiilka iyo ruuxa quduusku waa ilaah keli ah, waa ilaah keli ah weeyaan. marka caqiidada masiixiyadda waa sidaa weeyaan. waan ku dheeraaday, meel kale ayaan waanu ka soo hadalay. markaan mar baynu kaga hadli doonaa Trinity-ga, meel kale ayaanu kaga hadli doonaa. hadal badan baa ku jira meeshaan. marka masiixiyaddu ilaaha Bible-ku saddexnimo isku muujiyey. saddexnimaduna kamayna bilaaban injiilka, tawreed bay ku jirtay. tawreed bay ku jirtay oo ereyga ilaahay iyo ereygiisa iyo ruuxiisu weligoodba kitaabka way qur-aankana saasay ugu soo aroortay laftiisa. qur-aanka laftiisa Trinity-ga ku jira, saddexnimaa ku jirta. oo inaad la yaabta laga yaaba oo aad dhibsato oo tiraa ninku muxuu saa u leeyahay. laakiin anaa ku tusaya ii dulqaado. suuratu nisaa aayadda 171 maxay leedahay? yaa ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum walaa taquluu cala allahi ila alxaq inama almasiixu ciisa bna maryama rasuulullaahi wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama wa ruuxun minhu. maxaa la sheegay marka? allaha wa kelimatun minhu wa ruuxun minhu. ilaahay iyo ereygiisa iyo ruuxiisa waa amse ilaah, waa hal ilaah weeyaan. ilaahay iyo ereygiisa iyo ruuxiisa ayaa ku qoran injiilka. injiilka Yoxana bilowgiisa waxaa ku qoran bilowgii ereygaa jiray, ereyguna ilaahay buu la jiray, ereyguna ilaahay buu ku jiray, ereyguna ilaahay buu ahaa. ereyguna jidh buu qaatay, wuu inoo yimid. marka waxa weeyaan ereyga masiixu intuuna jidhka qaadanin ereyga ilaahay buu ahaa, weligiiba ilaahay buu ku jiray. weligiiba wiilka ilaahay ku jira ayuu ahaa. markuu jidhka qaatayna wiil buu noqday. waayo ereyga intii la qabto isku tallaab laguma qodbi karo. wiil waxa weeyaan waa inuu jidh qaato si uu qurbaan u noqdo oo dhiig iyo hilib u yeesho, si dhiiggiisa loo daadiyo, dhiiggiisa loogu badbaado. marka qur-aankuna wuxuu sheegay ilaahay iyo ereygiisa iyo ruuxiisa. rasuulullaahi wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama wa ruuxun minhu. saddexdii intuu qur-aanku sheegay ayuu wuxuu yihi walaa taquluu halaatha inama allahu ilaahun waaxid. saddex weeye hadhihina, ilaahay waa mide. saddexdii intuu sheegay ilaahay iyo ereygiisa iyo ruuxiisa intuu qur-aanku sheegay ayuu wuxuu yidhi walaa taquluu halaatha. saddex hadhihina haddana, saddex haddana hadhihina wuuna sheegaya. waa aayadda qaybteeda hore, inama allahu ilaahun waaxid, ilaahay waa midun. marka waad fahmaysaa fahmiga qur-aanku u fahmay injiilka iyo tawxiidka masiixiyadda inuu iyo qaabka masiixiyaddu saddexnimada u wado ay u fahantay inayna isku midba ahayn. waad fahmaysaa. marka waynu sii socon doonaa cashirkeen, halkaasaan kusoo koobayaa. cashiradana way sii socon doonaan, waan sii dhammaystiri doonaa. waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.